tayalo taageero shacab iyo midnimada u taagane tubta toosan xoojiya tubta toosan umad yahay xisbi weeye tayalo taageero shacab iyo midnimada u taagane tubta toosan xoojiya caawa waxaan u joognaa dhacdadii ka dhacday 14kii October 2017 oo ka soo wareegtay sanad ayaan waxaan u joognaa caawa inaan la qaybsano dhibkii iyo dhibaatadii ka soo gaartay ehladii qaraabadii kilometer 4 insha Allah taala marka waxaan rajaynaynaa in dhammaan shacabka Soomaaliyeed ay nala qaybsadaan arinta caawa aan fadhino barnaamijkeena caawa waxaan ku fureynaa aayadaha quraanka kariimka waxaana noo aqrin doonaa Ali Sheikh Abdi billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmanir rahiim wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب هذانا وحا كحيق دونا قدوميها قرب الجوكة الصوماليات سلام الله عبد الله سلام الله كسودو. برنامج كان وحكو سابسن يهي سيده هوريبا وشاقي حريريها برنامجك لعددي فوش حميت ka dhacday magaalada Muqdisho 19 October Zobe ama isgoyska Zobe loo yaqaano aniga magacaygu waa Cabdullaahi laakiin waxaan ku magac dheeray Salaamullah waxaan kamid ahaa dadkii goobjooga ka ahaa dhacdadaas ayada maalinka ayada markay dhacaysay meelan saa ugu dheereen ayaan joogay qadarka Ilaahay bay ahayd runtii waa dhacdo falxuma ahayd waxaan kamid ahaa guddigii hawsha ka qabtay meesha subaxii axad 4 saac oo subaxnimo safro 2 saac oo subaxnimo aniga oo team qurba joogta aan gudoomiyaha u ahay ururka qurba joogta xamar ka dhisan oo aniga gudoomiyaha u ahay xubno kamid ah oo 5 ah anagoo 2 baabuur wadano baabuurna biyo ku wadno baabuur weyn oo biyahan caafiga la yiraahdo kartoonna ku wadno iyo baabuur yaran wadani meesha ku tagnay garga kamid ah dadka gurmadka meesha u tagay oo runtii aan kula kulanay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir walaalkeen Taabid runtii waxay ahayd arrin aad iyo aad u foolxuma aad u murugo badan bay ahayd lagama sheekayn karo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inta dhimata Allah u naxariisto intii dhaawacantay Allah u boogadhayo gurmad weyn baa laga sameeyay dawladda federaalka waxay ka sameysay dadaal badan oo runtii meelo badan taabanay gudiyaal baa loo magacaabay tirakooba la sameeyay dadku waxa la geynay isbitaalada ma ahayn wax sahlan ma ahayn dadka meesha ku dhamaaday dad fara badan bay ahaayeen lama soo koobi karo anigu gacantayda anigu gacmahayga waxaan la galay dadkii dhaawac hilbihii dadkii wax ka gurayo oo baabuurada ku qaadayaan kamid ah wax kale iska dhaaf gacanteedaan la galay baan kama sheegayo waa qadar Ilaahay lagama maartay hordhici karo naf walba maalinkeeda ay soconaysaa marka runtii inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wa xasuusanayna ummadda Soomaaliyeed caalamka meel ay ka joogtaba waa la wadaagaynaa maalinka murugada leh ee Black Day loo bixiyay waa 14 October waxa ku xigtay tii kale naas hablood oo iyadana runtii anigu galabta iyada nafteeda aan ballan ku lahaa meesha 5 galabnimo anigoo jooga meelan ka dheereen laakiin qadarka Ilaahay ma dhicin alxamdulillah rabbil caalamiin anigu kulli ma gaarin runtii isdaba joog bay ahayd waa maalmo aad runtii dhib badan bay ahayd 14 October waa maalintaas runtii loo aastay Black Day 18 Octoberna ay ku xigtay runtii waa runtii maalmo ummadda Soomaaliyeed aan weligood qulubtooda ka go'ayna sida kuwii hore soo dhacay waa ugu mahadnaqayaa runtii guddigii ama mas'uuliintii hawshan soo qabaabushay salaamullaahi aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay markana waxaan u yeerayaa Dr. Ahmed Goore salaan kadib sababta aan caawa meeshan u joogno waa inaan is xasuusino
wixii ka dhacay 14 Oktoobar sanadkii la soo dhaafay magaalada Muqdisho taasoo ahayd tii ugu badneed oo ay ku dhinteen dad Soomaali ah shicib aan waxba geysan waxaanan Ilaahay uga baryaynaa maartay wixii ku dhintay in Ilaahay jannatul firdaws ka waraabiyo intii ku dhaawacantayna waxaan Allah uga baryaynaa in Ilaahay caafimaad wanaagsan siiyo waa arrin aan la ilaabi karin qof kastoo Soomaali ah ay muhiim tahay sanad walba in la is xasuusiyo waana mahadsantihiin Dr. Ahmed aad iyo aad ayaa mahadsan tahay markana waxaan u yeerayaa injineer Muxudiin Ahmed Xasan wakiilka jaaliyadda South East London caawa halkan waxaan isugu nimaday baroordiiq ama tacsi oo aan ka tacsiinayno 14 Oktoobar sanadkii hore 2017 dhibka ka dhacay Soobe iyo agaarkiisa number 4 arrin waxay nagu ahaaday haddaan nahay Soomaali naxtina arrin laga naxay ahaaday arrin argagax leh ahaaday inta ku dhimatay jannatul firdaws Allah geeyo inta ku dhaawacantana Allah caafiyo waxaan kala rabaa halkaan inaan ku darsado maadaama aan kamid ah dadka qurba joogta ahna jaaliyadda dadka guddiga jaaliyadda madaxda jaaliyadda Soomaaliya waa laga xusay waxaan arkay ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayr Allah si wuxuu tagay number 4 goobtii dhibka ka dhacay wuxuu ballan qaaday caruurtii agoontaada laga tagay in iskuul free la siiyo waxaan ku biiri lahaa ama ku darsan lahaa aniga waxay u la qabaan ummadda Soomaaliyeed caruurta Soomaaliyeed u la qabaan iskuul sababtoo waxaan ognahay Soomaaliya magaalada Muqdisho inay dawladda ballan qaaday iskuulo badan ay la wareegtay inay waxbarasho free ku siin doonto ciyaalkaasi waxaan dhihi lahaa waxbarashada ummadda kale ciyaalka kala qabaan baahay intaas ka weynay ayaga haysato oo ah meesha ay ku tiirsanayeen ayaa meesha ka baxday waxaan dhihi lahaa dawladda maartay ama وحسن على خير الرجال كيا محمد عبد الله فرماجة مدحوينها كيا إني at least و أبوران عيال كاسي بوسكي لقب حي عدي وبدلت أما أي و أبوران مال أي كتير سين فرصة وحبرش مركز وحي وقب عنا نسليها مارته ومدة كلا عيال كلا جيل كلا مقال المقدسة كنول أنت سنقدر لها كجال لها نعاو وحن ماشان وجوجنا نوحيته إن dareensiina dadka xamar ama Soomaaliya joogo xanuunka ay dareemaan in aan anagu laftigeena dareeno lana qabno waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun intii nooga dhimatay iyo intii ka sii horeysay nooga dhimatay qarxii Soobe waxaan leenahay shahiiday ahaayeen Ilaahay jannadii firdawsaha ka waraabiyo Ilaahayna ma aragtay qarxiyada naga joojiyo Ilaahay nabadana siiyo iyo establishment annaga waxaan nahay hooyooyinka wadanka ka soo tagay waagii wadanka oo nabad ahaa qaraxa iyo dhibaatada dhaceysana mar walba Soomaaliya wax ka dhacaan xuquuqda waa la qabnaa waxaan waliba aad iyo aad uga damqareynaa dhiiga maaragtay maalin walba daadanaya aaday noo dhibaysaa marka waxaan leenahay adduunyada nabada naas la nuuga leh qoladii maaragtay wax rabtaba waxay rabaan waa helayaan marka inay dadka Soomaaliyeed dhiigooda inay ku meertaan dadka wax qarxinaya ay iska dhaafaan dawladdan inuu Ilaahay ku guuleeyo maaragtay ii sheegay abniga inay ka shaqeeyaan intaas waxa noo dheer Soomaaliya waxa jiri jirtay kulliyada waxa jiri jirtay meesha agoonta la foolaa jiri jirtay hadda meel agoonta lagu xanaaneeyo male dad waxa jira waayeel ah ilmo yar oo dadkoodii qaraxii Soobe iyo kuwii ka sii horeeyay ay ku dhinteen waxa la rabaa dadkaas inay dawladda hay'ad ama dad u xil saarto oo la soo qoro oo $10 mushaarka inta laga gooyo meel ay lacag joogta ah ka qaataan $50 ama $100 inkastay Soomaaliya oo dhan wada agoon tahay haddana la soo liis gareeyo siday u kala daran yihiin wax loo taro Ilaahay idankiisna nabadda laga wada shaqeeyo qof walba nabadda asaga u baahan marka waxa waaye nabadda hadii laga wada shaqeeyo waxaan qabaa in nabad la gaari karo dalka iyo dadkaba waa u duceynayaa inuu Ilaahay nabad siiyo ayaa u mahadsan tahay markana waxaan u yeerayaa اكس حلبان عبد الرحمن معلن علي الرحمن الرحيم waxaan caaw halkan isugu nimid inaan tacsiim uga leh ee xusuusanno
walaalaheenii Soomaaliyeed ee isugu jiray caruur iyo ciroole dumar iyo rag dad masaakiin ah iyo dad mas'uuliin ah ee 14 Oktoobar ee sanadkii hore lagu gumaaday hal goob oo la yiraahdo Zobe oo ku taal magaalada Muqdisho wala inaan xusuusan arintaas aan caawis ugu nimid taasoo annagoo muujinayna sidaan ugu xunnahay dhibaatada soo gaartay ummadda Soomaaliyeed ee masaakiinta ah waa markii ugu horeysay sidaan filayo shakhsi Soomaaliyeed ama shakhsiyaad Soomaaliyeed inay hal goob ku laayaan dad lagu qiyaasay 1 qofood sidaan idaacadaha ka maqalnay taasoo ah masiibo ay gacan ka geysteen dad Soomaaliyeed runtii waa wax laga naxa waa wax laga xanuunsado qof kasta oo damiir leh oo ka xumaado waxaan rabaa inaan hal iraahdo dowladda federaalka ee Soomaaliya 1 qofood meel ay ku geeriyootay oo ay ku burbureen hanti badan ay ku burbureen ama ay ku burburtay ciyaar ma ahan waxaan rabaa dowladda federaalka Soomaaliya inaan ku booriyo hal sano kadib ummadda waxay ka sugaysaa ciddii ka dambeysay arrintaas in ay keenaan maxkamad caadil ah oo cadaalad ah inay keenaan ayaa muhiim ah ummadda way ka sugaysaa insha Allah arrintaas way ka sugaysaa waxaan leenahay tacsiyan u direynaa insha Allah dadkii maaragtay laga geeriyooday ilmihii agoonta ahaa islaamihii maaragtay asayga loo saaray asayga saartay arrintaas darteed intii laga dhintay waxaan leenahay sawir iman Allah idinka siiyo waa mahadsantiin xiis maxamuud maxamed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا walaalaha goobtan soo buuxiyay ee ka soo qayb galay baroordiiqda marka ugu horeysa marka labaadna waxa dhamaanteen halkan isugu keenay waa baroordiiqda aan u sameynayno dhibaatadii ku dhacday walaalaha iyaga reer Muqdisho dhibaatadaas runtii qof looga sheekaynayo oo Soomaaliya maanta ma jirto qof walba waa uu ka dheregsan yahay arrintaas sida ay yacnaha u dhacday waana arrin aad iyo aad qof walba Soomaaliya u taabatay oo dhiig leh oo nafi ku jirto ama damiir leh runtii maalintaas waxaan joogay magaalada Muqdisho dhagahayga ayaan ku maqlay aad ayaan uga fogaa waxaan joogay maxaa la yiraahdaa bakaaraha markii qaraxaasi dhacay waxaan u maleynayay aniga dushayda ka dhacay bal wax kala daayay daarihii ayaa muraayadihii soo daateen ku yaalay maxaa la yiraahdaa bakaaraha ku yaalay waa dareemi kartaa dadka xamar yaqaanahay labadaas meelood Soobe iyo bakaaruhu inta isu jiraan marka waa dareemi kartaa qasaaraha dhacay oo naf iyo maalba leh arrintaas ayaan marka ka tacsiyeenaynaa annagoo yacnaha jaaliyadda halkan reer London runtii dad fara badan ayaa ka soo qayb galay aad iyo aad ayayna ugu mahadsan yihiin waana wax loo baahan yahay yacnaha markii dhib uu dhaco inuu dadka oo dhani yacnaha wada damqado oo la iswada gaarsiiyo oo arrintaas laga dhiidhiyo runtii waa wax aad iyo aad u liita in sidaas oo kale ay dadka wax u gaaraan isla markaasna ay dadkooda ay saas dhiigooda u daadiyaan runtii waxaan leeyahay dawladdu inay yacnaha amniga dadka Muqdisho ama dadka Soomaaliya joogta ay sugto ayaa aad iyo aad ugu boorinaynaa كان حيس مركنا وحنا ويريا عاشة ديرية أفرح الله ونحرس أنتي كجيريو تقرأ حفاظ حماي أفريقيا أكتوبر إله ونحرس والدينتي الذي قرابتي meeshaas ku waayeen dadkooda samir iyo maalaha ka siiyo waxaan kala tacsi u dirayaa qaraxi fooso xumaa ka dhacay magaalada aan ku dhashay Baydhabo oo shalay lagu dhamaaday Allah naxariisto markana waxaan u yeerayaa injineer Munye Khaliif Munye xogayaha horumarinta warshadaha jaaliyadda UK waxaan tacsiyeynaa dadkii ku geeriyooday 14 October 2017 Soomaaliya ku geeriyoodeen Allah u naxariisto inta dhimatay samir iman Allah ka siiyo dadkii ay ka tageen iyo carruurtooda intaasoo kusoo gabagabeynaa assalaamu calaykum runtii caawa waa habeen muruga leh oo ummadda Soomaaliyeed meel weyn uga taala waa habeen taariikhiya waa habeen aan isugu nimiday baroordiiq
iyo dhibaatadii ummadda soomaaliyeed gaartay naasaha blootu iyo zoobe iyo qaraxii ugu dambeeyey ee shala ka dhacay magaalada baydhabo runtii waa inaynu xusiisannaa maalin kasta inaynu u joogi karin baroordiiq iyo caloolxumo iyo shacabka gumaadkiisa walaalayaal runtii waxaan rabnaa inaynu caawa aynu si intayna isu timiday iyo ummadda soomaaliyeed meel kastoy joogaan inaysan qalbigeeda ka go'in dhibaatadii ummadda gaartay oo taariikhi aheeday oo sanad ka hor waddanka ka dhacay runtii waxaad ogtihiin dhibaatada waa dhibaato joogto ah waay waxaad ogtihiin dadka hadda maanta shabeellada dhexe ka dagaalamaya ee macawisley la magac baxay ee dowladda hirshabeelle iyo dowladda dhexe u qaylinaya dayli waa dhimasho joogtaa waay runtii marka waa in ummadda soomaaliyeed ogaataa meel kastoy joogaan in wada jir wax loo qabto inay waajib tahay haddii kale maalin kasta mayd uun baan duugaynaa dad baa dhimanaya dhimashada inaynu aan uga dhigno mar kasta ay xusuusteennu ay naqato inaan tacsi ku jirno tacsi joogtaa marka inaynu arrinkaas meel uga soo wada jeesanno waxaa nasiib darro ah oo maantaan dowladda soomaaliya ku dhaliilaya in nimankii ugu waaweynaa oo aad ogtihiin shabaabka ugu waaweynaa inay maanta dowladda xilal waaweyn ka haayaan ambase ay kandideed yihiin oy rabaan inay waddanka xukumaan sidii mukhtaar roobow iyo lamida waxaa taariikha oo maanta aan dinaayabul ah oon la xusiista oon la inkiri karin 4,800 carruurah oo dhallinyaro ah ayaa daynuunaay iyo meesha baydhabo mukhtaar roobow geeyey waadna xusuusataan inuu diyaarad ka raaco sacuudi carabiya aaday haddii marka leyskugu abaalgudaayo inaad dadka soomaaliya la laayo ee la naqdo markaa xilal waaweyn la qabto taasoo kale waxay ka mid tahay inaad gacantaada aad adigu isku disho waa in justice iyo cadaalad ay timaadaa waa in qofka laga gudaa ummadda soomaaliyeed dhibka u geystay inaan shaqo loo dhiibin waayo nin dad laayay ee xasuuqa waxaan ognahay shalay rag yimiday oon xalay facebook iyo ka arkayay oo dhahaya dowladdan isu soo dhiibnay ee haddana dowladdii raba inay jaga ka qabtaan macnaheedu waxaa waaye raggii hoday u joogay ayaa oo ii sheeg dadka laayay oo xasuuqay ayaa jaga waaweyn ka haaya macnaheedu waxaa waaye weelka marka si aan dad kale u dilo waa inayn soo galnaa dowladda oon dowladda markaa ku biirnaa saan dad kaleeto maanta nool u dhammaynaa arrimahaas marka waxaan ugu sheegayaa halkan oon caawa ka caddaynaya oonan la gambanayn in allaha laa yastaxyi min alxaq xaqa kama xishoonayno dowladda ragga ka shaqeeya oon 1 iyo 2 iyo 3 aan dhihi karno oo jagooyinka waaweyn ka haaya runtii fartaa ku godan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waan u sheegaynaa waa inaysan shaqo ka qaban waa in laga saaraa waa inay systemka ku jirin otherwise daily dhimasho joogtaa rag maanta nool way dhimanayaan gacantaa loo geliyey macnaha waa adigoo lagu dhiibay mididaad isku dooxi laheeda wey marka raggaas waxaan u sheegaynaa dowladda soomaaliya inay xoogga saarto caawa baroordiiq baan nahay daylina mar kastana aan u baroordiiqno carruurteennii iyo aabbayaalkeen iyo walaalaheen iyo dadkii ahalka ahaay oo naga dhammaaday baan caawa xusaynaa marka waa in action yimaadaa waa in dowladda arrinkaas ay maaragtay responsibilityga ay qaalataa oo collective punishment dad wada jir ah loo laayo adduunka kama jirto oon galabsan oo carruur leh oo saqiir leh oo kabiir leh oo dad masaakiina leh oo daily lifekooda raadsanay waan ku baroordiiqayno aad iyo aad aad nu mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan caawa isugu nimid inaan u tacsiyeyno dhibaatadii gaartay walaaladeen soomaaliya xamar soobo qaraxii ka dhacay 14 October oo maanta ay ku beegan tahay waxaan la qiiroonaynaa dhibkii ku dhacay walaaladeen intii dhimatay intii dhaawac soo gaaray intii xoolahooda ku dhamaatay ayaan u tacsiina u taaganahay inaan la qaybsano tiraanyadooda anagoo ah tubta toosan oo xisbigeena aad iyo aad aan u dareemayno maanta oo ay tahay 14 October dhibka jiray last year marka halkan waxaan ka leeyahay tacsi ayaan u diraynaa Soomaali weyn anigoo ah kiin Cabdinuur oo u yeeray gudoomiyaha tubta toosan party Cornel Abdullaahi Dulle waa been naxtin leeyahay maalin naxtin leeyahay 14 October waxaan awoodi kara weynaa iska aamusno oo dhageysano oo dhahno kaliya Allah u naxariistay laakiin aan juhdi ku bixin
waxayna u kaliftay inaan soo baxno oon shacabka maadaama mashquul iska yihiin meesha joogo laga maarmaan ay noqoto inaan xusno maalintii masiibada ee shacabka Soomaaliyeed dhamaadeen 14 Oktoobar waa intiina soo martay waa markii ugu darneed ee Soomaaliya dhibaatada ugu darneed gaartay door cad oo subaxnimo ah yaa baabuur buuxo la soo daayay markaas suuqi soo dhaxgalay Zobe dad fara badan oo ku dhameeyay waxaan sugaynay dawladda ka sugaynay inay arintaasi baaris xoog leh ku sameeyaan dadkii ka dambeeyay arrimahaas raadiyaan xataa dawladda inay tuuta gashato dagaalka aadaan sugaynay aad iyo aad waa masiibo ahayd waa maalin aan la hilmaami karin ahayd haddaan nahay anagu gruubka xisbiga tubta toosan waxaa waajib nagu ah inaan hadda kadib sanad kasta haddaba noolo nafta ilaah noo daayo inaan ka qayb qaadano dhibkii maalintii dhacday baroordiiqa ah oo aanan iska aamusinay intii karaankeena ay tahay inaan u istaagno waa maalin aan la iloobi karin waa maalin masiibo ahayd waa qaraxyadii Soomaaliya soo maratay ugu darneed abid intaan adduunka joognay ahayd hal maalin oo dhinteen dad gaar ah 1,000 qofood oo aan waxba la iska weydiinin dawladdu waxay sugayeen sharafta leh inay inta la bistaan waa aragnay waxaan sugaynay dagaal xoog la geli doona shabaabka xataa maalin isku baday inay dagaalka shabaabka la galaan waxa ka darneed 4 maalmood ka bacdi xilligaas ay dhacday 14 February 2017 4 maalmood ka bacdi waxa la galay Naasab loo tuwa la galay dad baa lagu laayay shalay ugu dambeys waxaan maqlaay beedhaba laba qaraxa ka dhacday faraha in laga qaadaad moodaa in wax laga qabto arintaas dawladdu waxa soo jeedinaynaa sharafta leh ummadda Soomaaliyeed magaceeda iyo masabkeeda gacanta ku hayso nimankaas ma ahan marna niman raali ka noqonayo ma aha amba mas'uuliin laga dhigo xilka dawladda loo dhiibo amba laga soo horjeesto waxa waaye dadkaas waxa waaye intay nagu mashquulsan yihiin waa in lagu mashquulaha dagaalka la galaa laakiin in meelo kale aan ku mashquulno waa laga fiican yahay waa maalintii aad ugu darneed ee arinta ka dhacday burbur fara badan dhismooyinkii ka dhaceen dadkii ka qayb galay meeshaas ay joogaan maalintaas qaybaha ka qaatay meesha ay fadhiyeen Dr. Salaamullah iyo wadaadka kamid ahaa anaga idaacadahan kala soconay wixii ka dhacay maalintaas devastating ka dhacay baaba ka dhacay laakiin waxaan rabnaa oo dawladda ka rabnaa wili Rashal la dilwaarkayay waxaan rabnaa dadkii soo daayay arintaas soo daayay baabuurkii weynaa soo daayay maalin door cad la soo daayay mas'uuliyiin soo daayay control ka soo daayay oo shaqada ka hayeen haddii saraakiil ahaan lahayn haddii ciidan ahaan lahayn ma arkin bacid kale loo xiray haddaan aragno wax maxkamad loo saaro ma arkin war laba sano xataa cid la wax kuma arkin kuwa qofood oo la isweydiinin waa nasiib darro marka waxaan leenahay dawladda sharafta leh mas'uuliyadda waddanka hayso ballan qaada dadka iyo ummadda inay badbaadinayso waxaan rabnaa inay tallaabo ka qaado arrimaha dadkii sameeyey oo ay maxkamadda soo saartay raadiso dadkii isbaarooyinka furay baabuur weynna tareen buuxa dhigi soo daayay iyo ciidankii soo daayay maxaa laga qabtay oo ciqaab ah ma jirto 4 maalmood ka bacdi waxa la galay Naasab looda la galay dad baa lagu laayay cid maxkamad loo saarayo ma aragno waxaan codsanaynaa oo marlabaad codsanaynaa cidii ka dambeysay dilkaas iyo mas'uuliyiinta ka dambeysay dilkaas in wax la iska weydiiyo intay dhimato waxaan leenahay ummadii ka dhinteen agoonumay hooyadii ilma la'aanta noqotay odagii carruur la'aanta noqotay inta waxa ka tagay dad aan naqaanaa jirtay oo beledka deganaa jiray oo aan naqaano hebel dhigi karno waa badii hal qof oo laba sheegay maanta reerkooda maanta ay yihiin agoon ilmahooda yihiin meelaan ka tagay Yurub ka tageen Soomaaliya ku dhinteen kuwa lamid ah xaafadihii magaaladii ku dhintay ugu yaraan 1,000 qof oo Soomaali ah iyo dhismihii iyo hantidii iska baabaado ilaa hadda shabaabka maalin ay la dagaalameen dawladda hadda jirta ma jirto tuuto iyo gashana waa arkay ra'iisul wasaaruhu libisan madaxweynaha tuuto gashta waa arkay taliyaasha ciidanka tuuto wata waa arkay laakiin one day dagaal ay galeen ay saf balaar abu galeen amba mid kale u galeen iska daay hadda waxa waaye Hirshabelle maanta waxa lagu leeyahay diyaarada lagu aaday ma la aadi karo waa kuwa halkaas ka mar cid isweydiinaysa ma jirto waxaana laga sii shaqeynayaa in 4 sano ka bacdi haddana la soo noqdo oo ummadda Soomaaliyeed marlabaad 4 sano hadda la soo galo waa kuwa gobolka Shabeellaha Dhexe kacdoona ka jiro waxaa soo baxay jabhad la yiraahdo macawisleeya la yiraahdo dawladda waxa laga rabaa ama maamulka Hirshabelle waxa laga rabaa inay taageeraan dadkaas ee ummadda kacashaan ee abaabulaan ay garab ku siiyaan haddii kale jidkaas aas u xirnaa diyaarada joor lagu aadaya marka waxaan leeyahay walaalahay inta fadhiyaan dhamaantood waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka waxaan leeyahay Allah u naxariisto intay dhimatay dawladda sharafta waxaan ka codsanaynaa inay wax ka qabtaan ummadaas ee mas'uuliyadda qaaday haddii kale wala xisaabtama doona wadhiga la xisaabtama doona salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
weeye tayalo taageera shacab iyo midnimada u taagane tubta toosan xoojiya tubta toosan umad yahay xisbi weeye tayalo taageera shacab iyo midnimada u taagane tubta toosan xoojiya tuhunkiyo khilaafyadii mudda soo taxnaaye tacab khasaarka nagu riday wakii tirtirayo tubtagnaa nidaamkii tubta toosan xoojiya